السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولباتن يتوضبو بش سدحاد لباتكم شاني لباتن كا مالين تنوى مالين قميس اسبريمري افيتو موجينتا كالقعيلكا qaabkay u muujinaysaa qof baad rabtaa inaad u muujiso kalgaceelka aad u hayso heerka uu gaarsiisan yahay sidee marka ugu muujinaysaa talyaanigan ka hadlayna af soomaali iskuma haysano okay ti voglio tanto bene erego ti voglio bene waxaa loo isticmaalaa af soomaaliya waxay noqonaysaa waa ku jecelahay laakiin waxay ku kala duwan yihiin ti voglio tanto bene waxaad u isticmaalaysaa qof saaxiibada waalidkaaga oo kale markaad rabto inaad u muujiso ama macalinkaaga oo kale markaad u muujiso kalgaceelka aad u hayso heerka uu gaarsiisan ti voglio tanto bene carissimo ma fahamta adi qaaligaygii okay ti amo tanto tantissimo waa ku jecelahay waxaa loo isticmaalayaa waa ama la jeclaydaada ama la jecloogaaga qofka aad jeceshahay marka aad rabto inaad u muujiso kalgaceelka aad u hayso waxaa leedahay ti amo tantissimo okay ci tengo molto aad baan kuu haminayaa oo macnaha iyo shitenevo te proprio anigu kugu haminayay qofkii marka waxa u muujinaysaa kalgaceelka aad u hayso heerka uu gaarsiisan yahay esprimere muujinta kalgaceelka aad qofka hayso mi manchi tanto aad baan kugu xiisay tante volte sentite che qualcuno vi dice quando mi manchi mi sei mancato tanto macnaha waxay tahay aad baan kugu xiisay marka esprimere affetto esprimere waa muujinta ama qeexida affetto kalgacalka sida aad taqaana oo muujin lahayd marka waxaan filayaa ereyada macmacaan ee quseeya lamaanayaasha waalidka iyo ubadkiisa macalinka iyo ardaydiisa ay markaasi isticmaali karaan waxaan u maleynayaa inay ka faa'iideen intaan ku kulmi doono casharka mid lamida xiisaha kalgacalkeena xashaaye guurkeena markaad rabto qofta saaxiibkaada rabto inaad martaqaana la wadaagto ayaad u isticmaali kartaa wabeen intaas waa naga kaftan intaan ku kulmi doono casharka mid lamida waxaa idinkaga teganaa anagoo wada jirna nabaadiinoo nooli kulantee ciao ciao